magaalada Balad Xaawe ee gobolka Gadana waxa ay ka soo kabanaysaa dhibaatadii ay u geysteen dagaaladii u dhaxeeyay ciidamada dawladda iyo kuwa Al-Shabaab iyadoo waliba dhaqdhaqaaq ganacsi oo xagga dhismaha laga dareemayo magaaladaasi. warbixintaasi waxa Balad Xaawe nooga soo diray wariyaheena Cabdiqani Xuseen Kuusow. degmada Balad Xaawe ee gobolka Gado ku taala xadka kala qaybiyay wadamada Kenya iyo Soomaaliya isla markaasina xiriir ganacsi oo aad u weyn la leh degmada Mandheere ee dalka Kenya ayaa si xawli uga soo kabanaysa dhibaatooyinkii la dagay sanadadii la soo dhaafay. Balad Xaawe ayaa xilligan waxaa laga hirgelinayaa dhismayaal markaad aragto ku soo jiidanaya kuwaas oo ay bilaabeen kuna dhiiradeen inay hirgeliyaan ganacsiga degmada Balad Xaawe ee gobolka Gado. sidoo kale waxaa dib u soo laabtay deganaanshiyaha dareenka ummadda oo awal cabsi badan ka qabi jiray isku dhacyada dhinacyada isdiidan ee dawladda iyo Al-Shabaab. waxaana lagu arkayaa magaalada in ay hooyooyinka iyo maamulka degmadaba ay soo bandhigayeen xusaska qaran oo ay muujinaya dareenka niyad sami ee dadku ay xilligan helayaan. gudoomiyaha degmada Balad Xaawe ee dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamuud Cabdi Nuur Beexaani ayaan weydiiyay hamigiisa horumarineed ee degmada Balad Xaawe inta uu leeyahay waxaanu yiri bismillah وما صدق سؤال في عوان عقبضها جرورته الحمد لله رب العالمين وحن اسكف عن دتك الديجان ك ودقمده ينواحي جاد كل عقبضها سؤال كجود بنورته خلاص في عمان سلق هذا دقمده يدا إن هرمرنا إن أنا دبودا يهارتان بدن باكودا إن نهارين أو واحد بعدي تعب يوحبرش الله سوجست وبالشدة الأبابلو أو لكعية أو وقتك وحلا برا oo dalka tacab loo celiyo oo masaalixada iyo nabadda laga shaqeeyo oo si nidaam oo isku xirnaan oo higsi leh inaan uga wada shaqeynaan horta ku ballanay dadka deegaanka waan uga mahad celinaya awal dadka deegaanka kacdan waxa ku jira raabal waa ka baxeen waa ka gudbeen waxay u gudbeen inay dantooda ka shaqeystaan day dhismo noqoto day waxbarasho noqoto day beer tabcasho noqoto intaas aan isku ognaanay degmada Balad Xaawe waana ku ballanay akhyaarteeda iyo dhalinyarada waa maasal dadka dibadda waxaan aaminsanahay oo jaariyada oo u dhashay gobolka maasad inay shabaab ku xukumaan way akhristaan laakiin waxaan u sheegayaa maasad inay akhrisan inay dalka dib ugu soo noqdaan oo dadka wax baraan oo dadka la tabcadaan oo dadka tacab laga ay dalka kala gelinayaan ay dalkooda soo galiyaan oo dadka u sheegaan tubta toosan intaas aan ayaan u soo jeedinayaa maasad bashabaab u dhaarna oo leeyahay hadda timaado oo kulgu baraynay waa lagu ogeey meesha taagan waxaasi waa wax laga soo gudbay. dhanka kale gudoomiyaha ayaa sheegay in ay saruugsan yihiin dhanka waxbarashada waxaana uu sheegay in uu rajo weyn ka qabo inay kor soo qaadaan oo ardayda waxbarasho la'aan iyo rufruf kala soo kordhay maana ku ballan degmada iyo iskaga kaashana waalidiinta ganacsatada oo ku wargelina waxaan contribution ka geystaa dhismayaalka ka socda iskoolada iyo sida manaahiijta waxbarashada oo kale insha Allah ayagana waan go'aankaasaan ka leenahay waxaan rajaynaynaa isbedel fiican oo la taaban karo oo muuqdeen waxbarashadana ka soo dhalaalan oo ka soo baxaan. si kastaba ha ahaatee degmadan ayaa haddii ay hesho deganaansho waxa ay tahay midda ugu dhismayaasha badan amaba ugu ganacsiga xoog badan gobolka Gado marka loo eego maadaama ay ku furan tahay xuduud 3 geesood ah oo ay la leedahay wadamada Kenya iyo Ethiopia. Maxamed Xuseen Kuusow TV caalamiga ee Somali Channel degmada Balad Xaawe ee gobolka Gado.